milatariga Turkiga ayaa bilaabay duulaan dhulka oo ku beegsanayo waqooyiga Suuriya saacado kadib markii diyaaradihiisa iyo madaafiicda goobtu ay duqeeyeen deegaamo ay ka taliyaan xoogagga Kurdiyiintu. ciidamada Turkiga oo kaashanaya jabhada Suuriya ayaa galay aagga bariga webiga Furaad sida ay sheegeen saraakiil Turki ahi. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ujeedada howlgalkani ay tahay samaynta aag ammaan oo laga sifeeyay xoogagga Kurdiyiinta, taasi oo la dejin doono qaxoontiga Suuriya. xoogagga Kurdiyiinta ee garabka u ahaa maraykanka ayaa wacad ku maray inay iska caabin doonaan duulaankaasi uu Turkigu ku soo qaaday. duulaanka Turkiga ayaa bilowday maalmo kadib markii uu madaxweyne Trump ciidanka maraykanka ka saaray deegaankaasi oo weerarku ka dhacay, taasi oo u muuqatay inuu ogolaansho siiyay xukuumadda Ankara. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa dhaliilay weeraradaasi isagoo oo ku tilmaamay mid uu ka dambeeyo fikir xuni. wadamada Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa codsaday in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu kulan degdeg ah arintaasi ka yeesho, halka madaxa guddiga Yurub Claude Juncker ugu baaqay Turkiga inuu hakiyo howlgalka military. in walaaca ammaane Turkigu muujiyay uu yahay mid sax ah, balse uu filayo in dalkaasi uu isxakamayn doono. xoogagga Kurdiyiinta ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan in ka badan 12,000 oo qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka isku magacaabay dowladda Islaamka ee laga adkaaday dagaaladii dalkaasi Suuriya. maxaabiistaasi oo ku xidhan 7 xabsi ayaa ka mid yihiin 4,000 oo shisheeye ahi. laba ka mid ah xeryaha lagu hayo dadkaasi ee Rooj iyo Cayn Ciisa ayay ku jiraan qoysaska ragga la tuhunsan yahay, waxayna ku yaalaan aagga ammaan ee xilligan uu Turkigu samaysanayo. fadlan subscribe haddii aad ku cusub tahay channelkan.